السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa set hay production waa barta aad uga barateen barashada cilmiga kombiyuutarka siba xisaabinta xisaabaadka ganacsiga noocyada kala duwan. waxaan ku guda jirnay barashada cookbook enterprise solution iyo sidoo kale point of sale ee wada shaqeeyaan. casharkana wuxuu noqonayaa casharkeeni 12aad. casharkeena 12aad ee point of sale ka anagoo ku soo qaadanayna 7 point of sale password administrator ama password admin ugu xidhanaa. sidoo anagoo joognaa tagi doonaa meesha ku qoran tahay file dabeetana aadir waxaan soo dooran doonaa meesha ku qoran tahay preferences kasi dooran doonaa company. sidoo markaan u furno halka u sareysa judhaba waxa kaaga soo muuqan doonta required users to log in. marka waa meesha optionka passwordka aan kaga xidhi doono. dabeetana halkaas ka dambaysa qaanada ka dambaysa ayaan aadir tigta saari doonaa. halkan ayaa ku soo dhigmi doonta ama shaxdan yar ayaa halkan iman doonta ay ku qoran tahay create system admin password. system admin passwordka ayaa soo samaysanaysaa. haddaba waxaan ka dhigi doonaa si ay noogu fududaato 1 2 3 confirm xaqiijiyo ku leeyahay passwordka mar labaad xaqiijiyo 1 2 3 dabeetana okay adigu ka doonta ayaad ka dhigan doontaa. dabeetana save ayaan leeyahay. save marka yiraahdo sida tab passwordku ugu xidho yiraahdo log out tan ayuu kugu soo dhigayaa. hadda waa adminka passwordkiisa userku waa admin 1 2 3 ayaa adminka markaas ka dhignay. hadda saas ayaan soo galeynaa mar walba oo aan soo galeyno system admin doorana 1 2 3 na waa passwordka. casharkeena kooban oo ahaa casharkii 21aad waxaan ku baranay qaabka loo sameeyo password. hadaba password saad ugu sameeyso halkaas ayaa tagi doontaa file dabeetana waxaad doontaa preferences dabeetana company ayaa sii dooran doontaa. sida taayuu kugu soo bixi doonaa. saa markuu kugu soo baxo bartaas ayaa tigta saari doontaa baa tiri ayaan ku nidhi bartaa tigta ayaa saari doontaa. dabeetana save ayaa la doontaa. save markaas aad tiraahdid waxaad soo geli doontaa dabeetana userkii passwordka. haddii doonaysa passwordkeena ka furtidna waxaad doontaa file dabeetana waxaad la doontaa preferences company ayaa tagi doontaa. dabeetana halkii tigta saartay ayuun baa tigta ka qaadi doontaa. bartaas tigta bluega saarantay iyo aadir ka qaadi doonaa. save ayaan oran doonaa. save marka naahno hadda passwordkii saas ayuu uga furan yahay oo ku noqday bila password. balse markaan password gelinayno file baan tagi doonaa. waxaan daatan dooran doonaa preferences company inta marka marayno halkaas mar walba waa bila tig ugu horeynta tigta marka saartid daaqada tan ayuu ku soo dhigi doonaa oo ku leeyahay create password for the system administrator oo loo soo gaabiyay SYS admin. dabeetana passwordka waxaan 1 2 3 ayaan anagu ka dhiganay 1 2 3 na waa xaqiiqi mar labaad confirm password. okay marka tiraahid asaga uu soo dhigaya inaad gashid oo safe marka si raacsid hadda soo dalbu ku leeyahay waana marka ku soo dhiga qaanadii system admin iyo passwordkii gali 1 2 3 na waa passwordkan ku xidhnay. qaabkaasi waa qaabka ugu sahlan ee markaasi password admin loogu xidho. users soo sameeyana casharada ku xiga ayaan ku dhigan doonaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. kusoo dhawow shirkadda Baxnaano. shirkadda Baxnaano waa shirkad ku caan baxday soo dejinta iyo iibinta alaabooyinka stationery-ga iyo bagaashka. burco qaybta koobaad waxay ku taallaa qanciye supermarket oo ay kaga qabsan tahay dhinaca galbeedka. qaybta labaadna waxay ku taallaa ka soo horjeedka masaajidka Raxma oo ay kaga soo jeedo dhinaca galbeedka. wixii faahfaahin kala xidhi telefoonada hortaada kaga muuqda.
Thank you.